golaha deegaanka degmada Gaalkacyo ee Galmudug ayaa kadib kulan ay maanta isugu yimaadeen kaga hadlay warqad qoraal oo xalay ka soo baxday xafiiska Axmed Ducaale Geelle Xaaf taas oo ku aadanayd in la kala diro golihii deegaanka degmada Gaalkacyo ku-xigeenka duqa degmada Gaalkacyo ee Galmudug Cabdiraxmaan Maxamed Axmed ayaa ka warbixiyay sida ay u arkaan warqadan lagu kala dirayo golaha deegaanka degmada Gaalkacyo ee ka soo baxday xafiiska madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf si sharci iyo nidaam ah waxayna ku timid dawladda hoose degmada Gaalkacyo doorashadaas waxaana ballan qaadnay oo shacabka u ballan qaadnay in aan gaarsiino tiina ku doortay mid la mid ah oo aan bulshada gaarsiino sidii aan ballan qaadnay doorasho xor iyo xalaal ah inay ka dhacdo degmada Gaalkacyo la qabto nidaamkaas dawliga ah iyo systemkaas dawliga ah ee lagu soo dhisay maamulka degmada Gaalkacyo waxaan rabnaa sidii lagu igmaday inaan ugu shaqeyno bulshada ugu adeegno nidaamkii maamulkii naga horeeyay uu soo gaarsiinay inaan maamulka naga dambeeyo gaarsiino hadii ilaahay idmo waxaan sidoo kale ammaanka magaalada shacabka reer Gaalkacyo ugu baaqayaa inay ilaashadaan nidaamkooda nabadooda xasiloonidooda ayna ka shaqeeyaan sidii magaaladani ay nabad u noqon lahayd oo aysan noo saameyn lahayn khilaafka siyaasadeed ee Galmudug ka jira waxa la rabaa bulshadu inay ilaashadaan nabadooda iyo xasiloonidooda sidoo kale waxaan u sheegaynaa bulshada reer Gaalkacyo in maamulkii degmada Gaalkacyo uu shaqeynayo sida u jeedaan ba xafiiskii baan joognaa shaqadeena caadiga ah howl maalmeedkii aan wadnaa xafiisyada waa shaqeynayaan bulshada sidii baan u adeegaynaa sidii ay noo soo doorteen oo ay nagu egmadeen xilka nagu dhibteen baan u adeegaynaa ilaa aan ka gaarsiino ballanqaadkii ahaa in ii sheegay aan gaarsiino nidaamkii doorashada ahaa oo processkiisu mar hore bilowday socdana hadda waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa ii sheegay waxa waraaqda la sheegayo inay xalay ka soo baxday xafiiska Axmed Ducaale waxa leenahay magaalada Gaalkacyo uma baahna buuq siyaasadeed uma baahna waan la talinaynaa in oday weeye waxaan leenahay arintaas maahan mid habboon maahan waxaan sidoo kale u sheegaynaa dadka ka soo tagaya Dhuusamareeb oo ka soo xanaaqayo la Gaalkacyo ii sheeg lagu qabanaya nidaam iyo dawlad lagu dhisaya waxaan uga baaqaynaa arintaas inay ka baaqsadaan dawladnimada mucaaradnimo wax faa'iido ay leedahay male dadka waan soo arkay waan ku soo daaleen waxaan rabnaa dawladnimo rabnaa nidaam baan rabnaa system baan rabnaa ma rabno in foodo aan ka qayb qaadano iyo dhibaato inay dhacdo waxaan ugu baaqaynaa shacabka Gaalkacyo mar labaad iyo mar saddexaad inay dawladnimadana taageeraan xasiloonidooda iyo amnigooda ilaashadaan u sheegaynaa dadka cabashada ah ka cabanaya ii sheegay dhismaha maamulka Galmudug waxaan u sheegaynaa Gaalkacyo maahan meel foodo maahan waxa la rabaa qofkii cabasho qaba ha tago caasimadii dawlad goboleedka Galmudug Dhuusamareeb oo shaqada doorasho ka socota cabashadiisana ha u gudbiyo wasaaradda arrimaha gudaha oo madaxweynaha uu wakiishay inay shaqada qabtaan maahan Gaalkacyo meel foodo maahan meel cabashana maahan waa degmo ka tirsan degmooyinka Galmudug marka waxaan u sheegaynaa dadku cabashadooda inay la aadaan caasimadii Galmudug Dhuusamareeb waana maasantiin